waxaan aad ugu faraxsanahay inaan gaarnay heer aan dhihi karno waxaan la tartami karnaa caalamka laboratoriyada caalamka ka jiro. For example hadda mashiinkan automated machine oo muxuu ahaa biochemistry ah waxaan sameynay daily muxuu ahaa calibration iyo control oo internal ah. sidoo kale waxaan sameynay inaan external u dirno oo aan ogaano compare garayno resultigeena iyo resultyada kale oo dadka kale muxuu ahaa laboratoriyada kale. 100% waxaan aad ugu faraxsanahay in resultigeena aan ku soo gudbi karno sida ugu dhaqsiyaha badan result accuracy ah oo precise muxuu ahaa resultigii patientkii muxuu ahaa waxa ay samplekiisa ka jira. aadna ugu faraxsanahay in muxuu ahaa aan la tartami karno caalamka maanta. aadna farxad noogu ah. waxaan kale oo aan kale oo soo gudbinaynaa muxuu ahaa customerka kalkaal inay nala arkaan lab aad u qurux badan technology haday noqoto automated all machineedka aan haysano muxuu ahaa labka waa automated machine technology ugu dambeeyo hadda adduunka laga isticmaalo laboratoriyada muxuu ahaa adduunka oo dhan. machinekan waa automated biochemistry mashiinkan kale waa automated muxuu ahaa immunology biochemistry. sidoo kale mashiinka xagga noo yaalo waa automated oo muxuu ahaa CBC oo asigana 5 diff ah. marka muxuu ahaa waxaan u soo jeedinaynaa dadka inaan muxuu ahaa la tartami karno caalamka aan hayno. insha Allah department badan hadda alaabka ku soo dirnay. waxaan joognaa hadda blood bank ma sha Allah hospitaalku wuxuu u gudbay standard blood bank. waxaan u gudubnay muxuu ahaa gel method is modern blood bank muxuu ahaa a safe option oo patientiga muxuu ahaa waxaan patient u sameynaa full cross match oo cover gareynayo. awal waxaan screen ku sameyn jirnay ABO iyo RH typing laakiin haba adab blood group system oo aan muxuu ahaa aadan ABO and RHD typing aan ahayn say screen gareynaysa kuwaas maadaama aan marka aan sameynin muxuu ahaa screeningkii we must do muxuu ahaa full cross match. so full cross match marka waxaa la sameynaa muxuu ku cover gareynaa ani muxuu ahaa cause gareynayo muxuu ahaa intravascular oo ABO-gii ah iyo muxuu ahaa anything oo cause gareynaya extravascular hemolytic transmission reaction oo other blood groups sida muxuu ahaa big C, little E, big E, Duffy, Keats, muxuu ahaa other blood group system oo inta badan qaarkood ay cause gareeyaan inay cross gareeyaan placenta muxuu ahaa ay qofka dumarka uurka leh ay muxuu ahaa babyga dilaan. so in order marka inay taas dhicin waa inaa screen u sameeysan the best option muxuu ahaa oo safe blood u ah inay taas dhicin waa in loo sameeyo full cross match. full cross match muxuu ahaa alxamdulillah inaan haysano gel method oo the best option ah muxuu ahaa screen loogu sameeyo qofka dhiig lagu shubayo. so and this waxaan u gudubnaa hadda kalkaal muxuu ahaa and that's why muxuu ahaa 100% inaan gaarnay heer aan dhihi karno waxaan la tartami karnaa istaalada caalamka iyo matadka ay ku shaqeynayeen annagoo ku socono SFB-gii muxuu ahaa standard operating procedure oo adduunka oo dhan muxuu ahaa u ahaa guidelines muxuu ahaa lab. alxamdulillah ilaah maadiis muxuu ahaa inaan safety muxuu ahaa insurance aan siin karno qof kasta oo loo sameynayo cross match and ABO in muxuu ahaa laboratory kalkaal hospital insha Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan kamid yahay laabka kalkaal hospital oo runtii aan filayo inuu yahay laab dhammaystiran qaybihiisii basic ahaa lana tartami kara standardka caalamka
aan rabnana runtii inaan khariidada caalamka galno annagoo tusinayna qof kasta Soomaaliya madaxiisa inuu kor u qaado markii uu qof ajnabi yimaado laab Soomaaliya ku jira inuu arko inuusan ka duwanayn laabkii uu ka yimid caalamka. So lab kan for example waa microbiology wuxuu leeyahay basic microbiology wixii laga rabay safety cabinet incubator API ama education media antibiotic serological identification. So basically wixii microbiology caalamka isticmaali jiray ayuu leeyahay. So qof kasta oo yimaado marka uu yimaado standardkiina yaqaanay wuxuu ogaanaa inayna Soomaaliya ay ka mid tahay khariidada caalamka inaan ka baxsanayn inaan ka hooseyn aan la tartamayno waana rajaynaa laababka qaybaha kalena kulay ama biochemistry ha noqoto ama blood bank ha noqoto ama immunology ha noqoto inay ama hematology ha noqoto ayaguna kulay the same ka jirta caalamka 5 div caalamka ka jirta 3 div caalamka badana kuma badana soo waxaan aaminsanahay ama biochemistry ha noqoto ama micro ha noqoto hadda joogno inay yihiin caalamka standardka laga rabay lab ah waxaan rajaynaynaa inta isku ekaan mayne more staff ka joogaana waa staff aad u tababaran runtii fahmi kara pre-analytical iyo post-analytical iyo mid walba wax looga baahan yahay waxayna dhammaan u tababaran yihiin inay fahmi karaan interpretationka ama troubleshooting ama whatever ku yimaada inaysan ahayn only do it and report it inaysan ahayn oo ah runtii midka aan la dagaalamayn oo rabno inuu ka baxo laababkanaga istaalladanada Soomaaliya oon u rabno the highest level inay la tartamaan oo caalamka ka jira waxaan filayaa sida aad ogtihiin ba tabcan caalamku wuxuu leeyahay standard oo raaco oo laabku ay raacaan oo ama noqoto JCIA ama niraahdo ISO ama ha noqoto CAP runtii standardka uu noogu base garaysan yahay hadda oo build waa standardkaas oo ISO accreditation oo runtii aan prepare aan u samaysanay ama policy-yada ha noqoto ama procedure-rada ha noqoto ama quality-ga laga rabo oo daily-ga oo la sameeyo oo laabku uu sameeyo ha noqoto ama tababarka staffka laga rabo ha noqoto so waxaan aaminsanahay in aan goynay showdkii ugu muhiimsanaa oo ah inay noo harsan tahay end touchkii in aan noqono highly standard for safety for quality for patient care for improvement-ga laboratory diagnostic Soomaaliya oo dhan waxaan filayaa in qaybaha aan hadda soo sheegay oo runtii kala duwana mid walba uu ka gudbay manualkii for example biochemistry amalena semi automated wadamo yar oo caalamka ku haray annagana wuxuu noo ahaa base haddana alxamdulillah inaan marayno maatay full automated marayno kaliya inaan marayno which one better quality oo machine ha noqoto ama wadan ha noqoto ama reagent ha noqoto inaan marayno qaybta kale oo immunology-ga inaan aadno more accurate result oo aan ahayn only qualitative bal aan aadnay quantitative accurate na anagoo ilaalinayna in diagnostic uu yahay midka uu ku kalsoonaa karo qofka Soomaaliga dhakhtarka Soomaaliga waxa halkan laga diagnostic gareeyna ay la match gareey karaan standardka caalamka ka jira anoo ku faraxsan team ka shaqeynaya oo high qualify high experienced runtina aan ku faraxsanahay inaan dhammaan u wada shaqeynayno hadaf ah wadankanagu madaxa kor ha u qaado